injiilka sida Mataayo soo qoray cutubka 3 Yooxana baabtiisihii iyo fariintii uu waday maalmahaas waxaa yimid Yooxana baabtiisihii isagoo cidlada Yuhuudiya wax ku wacdiyaya oo leh toobad keena waayo boqortooyadii jannadu waa dhowdahay waayo kan waa kii nebi Isaayos ka hadlay kolkuu yidhi waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka Rabbiga hagaajiya wadooyinkiisa toosiya Yooxana qudhiisu wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa oo suun meged ahna dhexdu ku xidhnaa cuntadiisuna waxay ahayd ayax iyo malad dibadeed markaas waxaa u soo baxay dadka Yeruusaalem iyo kuwa Yuhuudiya oo dhan iyo kuwa dalka Urdun ku wareegsan oo dhan markaasuu webi Urdun ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya laakiin goortuu arkay qaar badan oo Farisiin iyo Sadukiim ah oo baabtiiskiisa yimi wuxuu ku yidhi dhal jilbisay yaa idinka digay inaad ka carartaan carada imanaysa haddaba midho toobad istaahila soo bixiya hana ku fikirina inaad tidhaahdaan waxaanu leenahay Ibraahim oo aabe noo ah waayo waxaan idinku leeyahay Ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo Ibraahim haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabka lagu tuuraa anigu biyo ayaan idinku baabtiisaa ilaa toobadda laakiin kan iga daba imanaya waa iga itaal weyn yahay kan aanan istaahilin inaan kabihiisa u qaado isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska iyo dab masaftiisu gacantiisay ku jirtaa goobta wax lagu tumana aad buu u safayn doonaa oo sarreenkiisa ayuu maqshinka ku soo ururin doonaa laakiin buushaha ayuu dab aan damayn ku gubi doonaa ciise waa la baabtiisay markaasaa ciise Galili ka yimid oo webi Urdun ugu tegay Yooxana inuu baabtiiso Yooxanaase waa diiday isagoo leh anaa u baahan inaad baabtiiso adiguna miyaad ii timid laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi haddeer ogolow waayo sidaas waa inoo eg tahay inaynu xaqnimada oo dhan wada yeelno markaasuu u ogolaaday ciise goortii la baabtiisay ayuu markiiba biyaha kor uga baxay kolkaasaa samooyinku furmeen oo wuxuu arkay ruuxa Ilaah oo sida qooley oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya oo cod baa samooyinka ka lahaa kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay